السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دhowow daawada waa video kale cusub videogan ha layga gaarsiiyo hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo ilmo haysato hooyada Soomaalida ee ilmaha haysato videogan ha layga gaarsiiyo waa codsi videogan waxaan kaga hadli doonaa hooy kasta ay ku nooshahay malaa'ig hooy kasta ay ku nooshahay ubad ama ciyaal lagama waayo inuu isdhex yaallo inay meel kastiba ay taalo ciyaalkii ciyaartii ku ciyaarayeen waa dabiici waa laga siman yahay adduun weynaha laga siman yahay sidoo kale ciyaalku waxay isku dayaan ay markasta ay rabaan inay ogaadaan waxa agagaarkooda yaalo adduunka inay ogaadaan adduunku way ku cusub yihiin adduunka inay ogaadaan ciyaarta inay rogaan ciyaar kale inay raadiyaan aqalka inay qalbka u rogaan waa wax laga siman yahay hooyada Soomaaliyeed ha ogaato videogan waxaan ugu talagalay inaan kugula hadlo maamo waxaad ogaataa aqal kasta oo ubad uu joogo waa dabiici inuu isdhex yaalo inay isku dhex daadsanaadaan waa dabiici waayo waxaa ku haysaa malaa'ig ama ubad aan dembi lahayn oo raba adduunka inay wax ku ogaadaan mararka ka mid ah waxaa siyaartay nin ayaa siyaartay guri hooyadii way walwashay ilmihii raba ku dhahday ururi ciyaartaadan sidii dabiiciga ay ugu oran jirtay qof kasta markuu soo siyaaranayo waxay ku dhigi jirtay ururi ilmihii rana wuxuu dhahay maya ha iga ururin hooyo waan ciyaarayaa ninkii ayaa si kidisa ugu soo dhawaaday guriga uu soo garaacay kadibna iyadoo uu walwalsan oo marna ilmihii ra la hadlayso marna ninkii inay guriga ka furta rabto marti culus ay u imanayso ayuu ninkii ku soo galay kadib way ka furtay iyadoo wali ku siila ilmihii yaraa hooyo ururi ciyaartaadan marti ayaa noo imanayso ninkii wuxuu ku dhahay hadal hooyadii maskaxdeedii bedelay wuxuu ku dhahay ha ku waayin farxadda ilmahaaga ha ku waayin farxadda ilmahaaga marti kula joogayso saacad iyo wax ka yar hooyadii way istaagtay hadalkii uu taabtay waxay ka filaysay aflagaadadii la aflagaadayn jiray martidu aflagaadayn jireen markasta oo la soo siyaarto aqalkeegu isdhex yaalaa aflagaadadii ayay sugaysay iyo eriyaashii xunaa ay maqli jirtay kadib waxay aragtay rajo cusub iyo hadal kaloo ka farxinayo aragti kaloo ka duwan aragti aqoonaysan aragti raxmadi ku jirto oo cashar ah oo hooyada barayso wuxuu ku dhahay ha ku waayin farxadda ilmahaaga marti kula joogayso 30 daqiiqo 10 daqiiqo 20 daqiiqo saacad 2 saacadood markasta waxaa ka mudan oo ka qiimo badan inaad qadarisid ilmahaaga ood ilaalisid maskaxdiisa ilmuhu wuxuu ka maskax badan yahay qofka weyn 10 goor jeer ayuu ka maskax badan yahay maskaxdiisu degdeg ay u shaqaynaysaa wax kasta ay aragto way qabanaysaa haddii maskaxda ilmahaaga ku korto inaad isaga abuse gareynaysid oo dadka kale qiimo siinaysid ilmahaas maskaxdiisii ayaad raad ku reebaysaa markasta isku day inaad ka hormarisid farxadda ilmahaaga farxadda dadka kale ilmahaagu siduu ku faraxsan yahay aqalkiisu inuu isdhex yaalo ciyaartiisa inuu dhinacu u jeestaba uu ka helo waa normal qadarinta ilmahaaga ayaa ka mudan markasta qadarinta dadka kale ku soo siyaarto martidu waxay kugu leedahay inaad marti soo yeesho inaad wax siiso laakiin comment-kooda iyo aflagaadadooda adduunku uma joogtid adduunka ilmahaaga ayaad u joogtaa ka farxi ilmahaaga mahadsan